wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada DSTV. Waxaan warbixintan ku faahfaahin doonaa wadamada caalamka oo idil baasaboorradoodu sida ay u kala awood badan yihiin. Haddaba waxaan ka codsanayaa daawade intaadan muuqaalkani hore u gelin inaad muuqaalka share garayso siina la garayso si uu u gaaro saaxiibo badan. Waxaan filaynaa inaad nala faafiso meel kastoo ka daawanaysid caalamka oo idil. Maxaad ka taqaanaa wadamada ugu baasaboorka wanaagsan leh wadamada caalamka? meeqa dal ayaa lagu tagi karaa baasaboorradooda fiisa la'aan? waxaad ka ogtahay wadamada ugu hooseeya? markaad intaasi maqasho waxaa markiiba qalbigaaga ku soo dhacaya Soomaaliya. tolow lambarkii kaga jirtaa? kulanti wanaagsan saaxiibayaal. bog wax ka qora arrimaha socdaalka caalamka ee loo yaqaan Khole Passport Index oo ay aqoonsan tahay hay'adda maamusha duulimaadyada caalamka ee IATA ayaa sanad walba soo saarta liiska baasaboorrada adduunka sida ay u kala horeeyaan iyo fududeynta safarrada. baasaboorrada sanadkan 2021 ugu wanaagsan waxaa ka mid ah baasaboorka waddanka Japan. sidii uu ahaa 2020 ayuu mar kale ku soo noqday waddanka Japan. kaalintii koowaad ayuu ku soo baxay labadii sano ugu dambeeyay. wuxuuna noqonayaa baasaboorka caalamka oo idil ugu awood badan dhanka dalalka lagu geli kara fiisa la'aanta amase halka aad ka gasho dalkaasi laga qaadan kara fiisaha. caalamka marka la eego inta badan waddankan Japan ee dalalka lagu aadi kara baasaboorkiisa ayaa ka badan dalalka kale. saddexda dal ee ugu awoodda badan dhanka caalamka dhanka baasaboorka ayaa waxaa ka mid ah Japan, Singapore iyo South Korea. saddexdaani waddan ayaa baasaboorkoodu yahay baasaboorka ugu dalku galka badan leh amase fiisa la'aanta lagu geli kara dalka. sidoo kale baasaboorka dalka Jarmalka ayaa kaalinta saddexaad la ciriirsanaya baasaboorka Kuuriyada Koonfureed. liiska sanadkan ayaa aad ugu dhow liiskii sanadkii hore ee 2020 oo soo saaray Bogani, gaar ahaan marka la eego kaalimaha ugu horeeya iyo kuwa ugu hooseeya. dadka haysta baasaboorrada dalka Japan ayaa 191 dal ku geli kara fiisa la'aan oo ka mid ah caalamka oo idil. muwaadiniinta waddanka yar ee Singapore ee ku yaala qaaradda Aasiya ayaa iyaguna ku geli kara 190 waddan oo kaliya caalamka oo idil fiisa la'aan ama halka ay dalkaasi ka galaan ay ka qaadan karaan fiisa. 10 kaalmood ee ugu horeeya liiska 2021 waxaa ku kala jira wadamada Japan, Singapore, Kuuriyada Koonfureed, Jarmalka, Talyaaniga, Finland, Spain, Luxembourg, Denmark, Austria, Sweden, Faransiiska, Portugal, Portugiiska, Netherland, Ireland, Switzerland, Mareykanka, Ingiriiska, Norway, Belgium, New Zealand, Greega, Malta, Czech Republic, Austria, Canada iyo Hungary. 10kaas lambar ayay ka soo kala galayaan baasaboorrada ugu awoodda badan la caalamka oo idil. qaybta ugu hooseysa waxaa kaalimaha ugu dambeeya uga jira baasaboorka waddanka Afghanistan oo ah baasaboorka ugu liita baasaboorrada caalamka oo idil. haddaba waxaad isweydiinaysaa su'aasha ah Soomaaliya sanadkan tolow kaalintii ka soo geli doontaa? Soomaaliya waa waddanka 132 ee caalamka oo idil ugu baasaboorka liita. wuxuu ku jiraa wadamada ugu baasaboorka liita wadamada caalamka oo idil. waa waddanka shanaad ee ka mid ah wadamada ugu baasaboorka liita caalamka, waxaana ka hooseeya 4 dal oo kaliya. Soomaaliya waxaa lagu geli karaa baasaboorkeeda fiisa la'aan 33 waddan oo kaliya, waxaana ka hooseeya wadamada Pakistan, Ciraaq, Suuriya iyo sidoo kale Afghanistan. waddanka Pakistan oo ah waddanka afaraad ee ugu baasaboorka liita adduunka oo idil waxaa lagu geli karaa 32 waddan. Soomaaliya ayaa hal dheer. sidoo kale baasaboorka waddanka Suuriya 29 waddan ayaa lagu geli karaa. baasaboorka waddanka Afghanistan waxaa lagu geli karaa 28 waddan.
baasaboorada adduunka oo idil waxaa ugu hooseeya baasaboorka waddanka Afghanistan oo ahay midka ugu hooseeyay sanadihii ugu dambeeyay oo idil. haddaba maxaad is leedahay Soomaaliya wuu ku soo kordhi karaa sanadkan 2021 xiriir cusub ma samayn doontaa mise heli doontaa dalal cusub oo u sameeya fiisa la'aan inay ku soo galaan muwaadiniinta Soomaaliya haysta baasaboorka Soomaaliga inay ku galaan fiisa la'aan dalkooda ayna ka goostaan. waxaan filaynaa inaad nala faafiso warkan sina share garay halkani waa DSTV.